بسم الله الرحمن الرحيم ujeedo magacaabis ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu maanta magacaabay guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda Soomaaliya oo kala ah 26 Juun iyo sidoo kale 1 Luulyo sanadka 2021 guddigaas ra'iisul wasaaruhu maanta magacaabay ayaa waxay ka shaqeyn doonaan qabanqaabada maalmahaas xorriyadda Soomaaliya oo runtii aad muhiim ugu ah shacabka Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliya xubnaha guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay kala yihiin sida tan mudane Cusmaan Abuukar Dubad wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska gudoomiye mudane Xasan Xundubey Jimcaale wasiirka amniga gudaha ku xigeen mudane Duraan Axmed Faarax wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xubin mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda xubin Marwo Qadiija Maxamed Diiriye wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xubin mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xubin marwo Shukri Maxamuud Afrax wasiir dowlaha tamarta iyo biyaha xubin mudane Cumar Maxamuud Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xubin iyo ugu dambeyntii mudane Bashiir Axmed Cusmaan agaasimaha golaha wasiirada oo ah xogeynta guddigaas ama xogeynta fulinta guddigaas waxay ka shaqeyn doonaan oo ay qabanqaabinayaan maalmaha xorriyadda maadaama ay runtii ra'iisul wasaaruhu u arkay inay yihiin kuwa ahmiyad weyn u leh sanad walbana la qaban jiray guddiyo noocan oo kale ah marka sanadkan maadaama ay guddigaas ka shaqeynayaan waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya toddobaadkii soo socda Soomaaliya xorriyadeedii loo dabaaldego qof kasta oo Soomaaliyeedna uu qayb ka qaato maalmahaas iyo weynayntaas loo hayo maalmaha xorriyadda Soomaaliya oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed taabanaysa iyo midnimadooda